Soomaaliyeed ee martida ah ee madashan soo gaaray Puntland sida caadada maadaama aan qadiina dad islaamana nahay aayadaha quraanka inaan ku furano waa muhiim waxaan u yeerayaa Sheekh Maxamuud inuu aayadaha quraanka inoogu furo ugu horeyn Allah ya mahad iska leh subhanahu wa ta'ala mahad celinta Allah kadib waxaan u ducaynaynaa martiqaadkan qiimaha badan ee ismada inoo sameeyay Islaan Ciise Islaan Maxamed iyo Suldaan Saciid Maxamed Garaase waxaan leenahay afdara intakum as-saa'imuun wa akala ta'amakum al-abraar wa sallat alaykum al-malaa'ika wa barakallahu lakum fima a'daytum wa fima abghaytum Allah idinku dimi dhaafo wixii aad bixiseen iyo waxa Allah dheemba Ilaahay idin barakeeyo subhanahu wa ta'ala intaas kadib waxaan naftayda iyo dhamaanteenba isu daarmayna hantida iyo raandhiiska xaqiiqada ah raasumaalka aynu u wada baahannahay oo ah inaan Ilaahay ka cabsano subhanahu wa ta'ala waa midda Ilaahay inoo abuuray oo xooga iyo aqliga iyo samaca iyo basarka Ilaahay inoo siiyay oo makhluuqa kale oo dhulkan Ilaahay uu ku uumay Ilaahay inoo ka duway oo Ilaahay inoo ka fadilay subhanahu wa ta'ala waa dardaaranka Ilaahayna kula dardaarmay aayadii quraanka ugu dhameysay soo digitaanka wattaquu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun Allahu yiri wardadow Ilaahay ka cabsada maalinta Ilaahay leedin horgeynayo qof walba idin kamid ah iyadoo maalintaas lagu abaal marinayo qof walba adduunyadan wixii uu shaqaystay cidna iyadoo aan la dulminayn Allah subhanahu wa ta'ala nolosheena oo dhan waxa Ilaahayna ku waajibiyay inaan Ilaahay ka cabsano laxada kasto nolosheena aan ku jirno markii Allah uu amaanayay dadka aqliga dheer leh oo Ilaahay sida saxda u caabuda Allah waa tuu ku amaanay alladheena yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi waa kuwa Ilaahay xusa xaalad kasto ay ku sugan yihiin fadhi istaag jiif Ilaahay bay xusan yihiin oo ka baqayaan nabiguna waa tuu yiri sallallahu alayhi wa sallam ittaqillaha haythu ma kunta ma jirto laxda nolosheena kamid ah oo leeno ruqseeyay inaan Ilaahay caasino af iyo adin midna markii Ilaahay aynu ka cabsano ayaa arrimaheena adduun iyo kuweena aakhiraba Ilaahay inoo hagaajinaya oo Ilaahay dhexdeena islaax dhex dhigaya iyo wanaag Allah waa tuu yiri subhanahu wa ta'ala fattaqullaha wa aslihu dhaata baynikum Ilaahay ka cabsada wixii idin soo dhaxaystana ka heshiiye waxa heshiiya cidii Ilaahay ka cabsanaysa oo Ilaahay ka baqaysa waa heshiinayaan maxaa yeelay khilaafku waa cisyaan Ilaahay lagu caasinayo subhanahu wa ta'ala waad wada ogtihiin sida salaada Ilaahay inoo ku waajibiyay oo zakada Ilaahay inoo ku waajibiyay oo soonka Ilaahay inoo ku waajibiyay si lamid ah ayaa Ilaahay inoo ku waajibiyay midnimada iyo walaaltinimada iyo xariga Ilaahay inaan wada qabsano wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu dadka muslimiinta ah Ilaahay baa mideeyay diintooda iyo adduunyadoodaba dhexdooda tafarruqu boos kuma leh tafarruq hadaad aragtid waa xal shaydaan Ilaahay baan ka magan galay dhamaanteen waxaan isu daarmaynaa inaan Ilaahay ka cabsano walaaltinimada iyo midnimadana aynu wada xoojino qof walba meesha uu ka joogo inuu ka xoojiyo talaabo kasto aan qaadayna inay noqoto mid ku dhisan oo aan ka eegayno Ilaahay kitaabkiisa muxuu ka qabaa sunnada nabiga calayhi salaatu oo saxiixa ah maxay ka qabtaa sida hadaynu talaabo walba ku talaabsano adduunkeena iyo aakhiradeena dhaqaalaheena siyaasadeena arrimaheena bulshada wax walba waa inoo hagaagaya marka intaas baan rabaa
inaan dardaarmo mar kale ayaan madaxda ka soo qayb gashay xafladdan oo ismooda casumeen madaxweyneyaalkii hore ay ka mid yihiin ra-iisul wasaareyaalkii hore guddoomiyaashii baarlamaanka oo hore iyo madaxda kaloo meesha fadhida tiro lama gaaro madaxweyne hore ee puntland cabdiraxmaan aw maxamed dhammaantiin mar kale ayaan salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sala allahuma calaa maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin haddana waxaan rabaa insha allahu inuu kelmaddiisa yidhaahdo aan u yeero suldaan siciid maxamed garaase suldaan soo dhowow xoogaama dadkii qoslinaya waxaan leeyahay way sarkeen suldaankii ra-iisul wasaaruhu ha yidhaahdo intaa kadib ilaahay baa mahad leh waxaan u mahad celinaynaa dadka noo diyaariyey qadadan oo cabdullaahi salaad cali ilyare iyo shaqaalihiisa waxaan kaloo u mahad celinaynaa ikhyaarta sharafta leh oo na aqbashay oo na ogolaatay oo qadadayadii noogu yimi adeeggii aanu u dirsannay ilaahay baa mahadle waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa ilaaha qaadirka ah oo noo ogolaaday inaanu halkan ku shirno iyadoo nabadgelyo ah oo ku qadayno oo beertaan dhirta quruxda badan leh aanu xeerada faraha wada gelinno dadkii soomaaliyeed madaxdii mustaqbalka iyo tii la soo marayba intaa kadib hadal shirkii baa lahaa halkani waa qada sharaf war badan uma baahna ciddii hadal qabtaa shirkii bay ka hadli lahayd inkastoo aan dhegahayga ayna ku dhicin mustaqbalka dhowna halkaasaanu qodob dhignay kan fogna halkaasaanu qodob dhignay dhegteeda kuma dhicin walaakiin ninka weyne hadduu xanuunsado sidee tahay waa ladnahay waa hadal nin weyn shirkii waa lagu heshiiyey waana israacay waa hadal nin weyn qodobadaa inaan dhegaysto waa jeclaan lahaa mase maqal halkaasaa wax la dhigay intaa kadib ikhyaarey horta ilaahay baa mahad lehe waxaa la yidhi adduunka in la wada joogana waxaa diiday danta aakhirana camalkaa diiday inaynu marar badan sidaa isugu nimaadno oo sheekaysanno oo xeerada faraha wada gelinno oo lays arko oo laysa salaamo ehelnimo iyo soo dhoweyn iyo qalbi maaragtay raxmad leh oo israba baa ka dhasha laakiin wakhti badan looma helo waxaan odhan lahaa soomaalidu waxay tidhaahdaa nin weyni wuxuu ku hadlaa waa dardaaran wuxuu cunaana waa dhuuni anigu waxaan u malaynayaa nin ila filihi waa yar yahay nin xoogaa qarsanaya ha jire waa laga yaabaa rag wax qarsanaya oo aanu isleegnahayba xoogaa iga weyn soomaaliyay maantay waa isgaranaynaa intiina halkaa fadhida iyo dadaan badnayn baa maantay raba hoggaanka soomaaliya iyo jahada ay u guurayso iyo siday u noolaanayso iyo sharafteeda siyaasadeed intaasaa laga eegayaa waxaa la yidhi haddii hadalku degi waayo oo meel lagu wada hadlayo ama halbaa ku bura ama halbaa ka maqan waagii la tegey carte oo rag badan oo halka joogaa ay nala joogeen aad baa la ysugu xiiqay wixii laga soo saarayna waxaanu moodaynay markaa inayan dhaafayn oo cabdiqaasin lagu doortay one man one food in loo gudbayo way nala ahayd 4/5 la dhabcaystay annagu waxay nala ahayd mar inaan wax isu keenno halkan dowlad baa ka jirtay puntland somalilandna qoladaas waa jireen iyagu waa ka cudadaarteen maamul goboleedada kale cidi kama joogin halkan dowladdii joogtay shirkaas waa sharaysteen waana diideen salaadiintii puntland baa khasabtay in meeshaa la tago waxayna u muuqanaysay dadkii kale marka xamar buu noqonaya haddaan maamullo kale dhisnayn xamar keligeedna inaan wax loo dhiseen laakiin faraj ilaahay uga dhigay in puntland dhaqankeedii uu muquuniyey soomaaliya inay isu tagto oo meeshaa wax ka soo baxaan marar badan oo aanu shirkii isku diidnay oo la kala joogsaday maraan hadlayna way jirtay oo aanu wax tirsannay oo xoogaa shirka dibadda aan ka joognay waxay nala ahayd inaanu xoogaa culays muujinno maahee shirka dad baa ku dhintay markaanu halka ka baxaynay mudaharaadadii iyo
in la aado mar baan waxaan idhi anigu maantay in dhalinyaro ana waa ahayoo damacno ku jiro dhaqaalahana ka ladan oo gabdho iyo wax rabraba waxaan idhi haddii soomaaliya la yidhaahdo adaa sadqa oo ah lagu toogto oo soomaaliyadii jiri jidhay baa soo baxaysa iyo sharaftii midaysneed iyo shacaarkii diyaar baan ahay ma aqaan markii laysoo taago inaan biqi lahaa laakiin markii niyad bay iga ahayd been sheegi maayo adeerayaalow danta caamka ah baa khaaska dhasha waxa arrinteenu la fariisan weyday nin dhagala baa waxa la yidhi gar lagu yeeshay waa diiday ma yeelayo wuxuu yidhaahdo oo kuwa afka wax ka garansiiya iyo kuwa faraha iyo waa laga caal waayey mar dambe wuxuu yidhi waa qaatay mid baa ehel u ahaa baa yidhi war gartii maxaa ku yeeshay waataa diiday waryow dadkii oo dhan ii wada jeedaan arkay buu yidhi waa laynoo wada jeedaa soomaali haddaynu nahay waa la yaaban yahay beesha caalimkaa yaaban dhaqaalihii iyo taageeradii waa layna ka daysanaya tababarkii waa layna ka daysanaya wixii layna tari jiray final baynu maanta maraynaa hadda waxaan isleeyahay dant aadan cabdulla cismaan jannadii allaha geeyo waxaa la yidhi habeenkii laga helay madaxweynenimada baa inta taageerayaashiisa u tageen waxaa la yidhi qof baa inoo dhiman aan iibino maandhaynu ma soomaali baynu gadaynaa inaynu madaxu noqonno aynu iib ku raadinaynaa wax inoo dhaama haddii la helayo haniya lakum iga gudbiya isagoo dhintay baynu kulligeen u ducaynaa wuuna isdaahilaa waxaan isleeyahay waxa meesha ku jira waxa weeye dantii caamka ahayd baynu waxaynu ka hormarinaynaa midda khaaska ah anugu musharax baan ahay waxaan odhanayaa shabaabta iskama arko waxba yay dhicin soomaaliya hadday doonto ha isku wareegto maxaa u malaynaysaan wax ma helaynaa may wallaahi arrintu waa sibay u janjeedhaa joojiya wartaayna ka daaye adeerayaalow walaalayaalow danta caamka ah ka hormariya midda khaaska ah khaasku waa imanaysaa ilaah baa u hiilinaya ninkii soomaali u hiiliya hadda qoladan somalilan si kastaba arrintoodu ha ahaatee markay xoogaa isku murugto ninka meesha haystaa wuxuu yidhaahdaa war somalilan baan u tanaasulaya waa u hiilinaya iyagaan u hiilinaya waa dadnimo marna maxaa loo waayay nin yidhaahaa soomaali baan u hiilinaya horta ra-iisul wasaaruhu waa yidhi maalintii ilaa ninka intiisa lagama qariye xaq layguma ridin laakiin soomaali baan u tanaasulayaa buu yidhi inaan fadqala la dhexgeliyo iyo haddeer dhib hor leh marka intaas waa iska haldhaan wade anigu laakiin waxaan idhahdaa qadada haddaan markaan imaadana la oran faraxalo markaan afka ka qaadana la oran waa fasaxan tahay bilayrka habartaydaan ka jeclay baa idhahdaa iga daaya shidadeeda marka raalle iga ahaada intaas waa jeclaystay inaan idinku lifaaqo aad iyo aadna waa idinku mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxaan u yeerayaa islaan ciise islaan maxamed islaan muuse islaan soo dhowow innagoo dad islaam ah ehela maslaxad isugu yimi meeshaan inuu isugu keenkeeno inoo idmay haddii adduun qurux leeyahay quruxda leh ilaahay inoo idmay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin intaa kadib xafladdan qaymaha badan oo maanta aynu isugu nimi oo annagu aanu gogosha dhignay laakiin qaymaheeda iyo quruxdeedu ay tahay intiina soo ayiday ka muuqashadeeda aad iyo aad ayaan idinku mahad celinaynaa aqbalaadda aadna soo aqbasheen iyo imaatinka aad noo timaadeen ilaah baa mahad iska leh wixii ayaan idin qaban oo idinla kulmay raallaad ka ahaanaysaanin wixii wanaag oo idin haleelayna mahaddooda ilaah baa iska leh aad iyo aad baan marka idinku mahad celinaynaa annagu sidii suldaanku uu u hadlayay annagu wuu yidhiyo markii cunada la igu yeero falaxalaan idhaahdaa baan u jeclahay markaan cunana waa fasaxan tahay anigu marka nin reer miyiyaanaayo dadku hadduu nagu hoydo ama noo hargalo haddii aanu sooriyeyno wax ma daba dhigno laakiin reer magaalka gogashiisu waxna waa ka horreeyaan waxna waa ka dameeya hadday marka hore kugu bilaabaaniin saaad u hadlaysid baad xuurtoonaysaayo cunnada markay kuu keenaan waxba ma cuni kartid
haddii ay cunnada kugu hormariyaan nin hadde soomaalida reer koonfurkan waxaan ka maqlay nimaan odhan ma dhaho cunnadii bay kaa soo celinayaan maantao dhan hadal bay ku leeyihin marka annagu dabeecadaasaanu leenahay inta haddar waqtigu joogaaba nagu adag marka dhammaantiin inta meeshaan ka soo qayb gashay oo na soo aqbishay aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waa isku leenahay kuma ammaanin abbaar weeye waxaanu ku ammaananahay maahan inta markii aanu meel kala tagno naloo sameeyo inta madashaani joogta weeye inta haddaan ka gudbo adeega raggii hayay ayaguna waa mahadsan yihiin intaa waxaan ku darayaa su'aal yar su'aashaasi madal joogaha iyo ka maqnaha waa ka dhaxaysaa qofna gaaruma ahan inta madasha joogta iyo inta ka maqanba wax khaasana ma ahane wax guud weeye haddii ay wax qaasa tahay hadalku Soomaalidu waxay tiraahdaa madal iyo minan buu kala leeyahayo wixii khaasa midankeedaan la sugayaa laakiin taan anigu rabo inaan idhaahdo hadal madaleed weeye hadalkaasi wuxuu yahay maslaxadda Soomaaliya ama danta guud oo ina ka dhaxaysa inteynaan joogta iyo inta maqan oo ina la mid ah ilaah waxaan ka baryaynaa waqti badan oo adag baynu soo maray oo aan laga sheekayn karin ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii ina soo maray oo dhib ahaa inuu ina ka boogadhayo ilaahna waxaan ka baryaynaa waxa maanta ina haysta oo culaysa inuu yusran inoo ku bedelo waxaan marka farayaa dadkan madasha jooga iyo dadka i dhagaysanayaba waynu soo aragnay burbur iyo dhibaato iyo qabiil iyo qoys waynu soo aragnay 30 iyo wax dheer baynu ku soo jiray wiilkii maalintii hooyadii la guursaday waa maanta dhal leh dhibaatada waxa inoo keenay burburkii Soomaalinimo waxaan marka maanta intaan madasha joogta farayaa iyo inta ka maqan oo dhageysanaysaba wixii aynu waxa kaga gudbi lahayn isaga oo qof kasta oo imaqlaya iyo mid kasta oo dhageysan doonaba uu isu xusaaro wixii Soomaaliya waxa maanta ina haysta aynu kaga bixi lahayn oo loo dooni lahaa shacaarkii Soomaalinimo iyo dawladnimadii iyo wadajirkii iyo sidii ragina ka dhigan aynu wax ula qaybsan lahayn baan farayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku faraxsanahay imaatinkiina aad iyo aad baan u faraxsanahay waxa idinka soo baxaya aad iyo aad baan iyadana idin soo dhaweynaynaa wixii tagay raggii tagay oo galaha ka maqani way martiqaadka wax way ku lahaayeen laakiin hadde hawlaha adduunka iska badan aad baad marka u mahadsantihiin Puntland ahna hadda xubin aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud madaxweyne soo dhawow mid kaliya baan ku adkaynayaa waxa weeye mahmaayada isimadu hadda ay ku dhaheen anigu hadde wax badan sidoo kale mahmaayo badan ma aqaan laakiin mid baan aqaanaa culus waxay tahay markii ceelal iyo heshiiso baa xoolo biyo cabaan markii ceelal iyo heshiiso xoolo biyo cabaan Soomaalidu ceelal birqodayana ma lahayn durdurana ma wada haysan sida nugaashan oo kale iyo webiga Shabeelle iyo Jubba markii ceelashaas xooluhu meesha ku dhaqan yihiin joog waa la isku riixi jiray xoolina waa iska horan yihiin laba maalmood saddex maalmood bay joogaan marka horyaan heshiis baa dhacaya markii heshiisku dhaco ayaa xoolaha sidii loo kala horeysiin lahaa ceelasha loo waraabin lahaa la siiya mahmaayada ku aadan waxay la tahay isimadan ku celinayahay hadday hayaan inay noogu daraan Suudaan Siciid baa aad u mahaya badan islaamkuna isaguna waa mahaya badan yahay laakiin Suudaan Siciid oo kale anaga hadda Puntland kuma wahayn wax ka mahaya badan waxa weeye waxayna ku soo aadan oo hadda dib u dhacay waa dawladnimadii Soomaaliya oo dib u dhacsan idinkana murashaxiin badan baa tiin kolley hadal ma yarayn golihii hadda meesha madashahana waa laga yiri shir hooseedyana waa jireen
waxaan ogahay in shir hoosyadaas wararku si kasta isu gaargaareene in mashaakilkii jiray qaar ballanqaad uu ka jiro in la furaayo qaarna la diidan yahay kuwa la diidan yahay baan waxaan ugu adag kan la diidan yahay nidaamka federaalka baa ku dhisan haddii kaas lay diidan yahay dowladda dhexe ay diidan tahay iyo madaxweynuhu la diido nidaam federaala ma jiro mana la aqbalayo maxaa yeele waxaan sharciyeynay in dib loo furfuro nidaamka federaalka oo state ku dhisnaa aad baan ugu hambalyeynayaa xasan sheekh nidaamka federaalka